السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورسdan cusub ee aan qaadanayno ay ku saabsan tahay network essential. halkan sida idinka ugu muuqato waa roadmap-ka qofka raba inuu network engineering yani focus uu saaro oo uu raaco. marka hadba doorashada qofka ay markaas ku xiran tahay. halkan waxaa ka muuqda a lot of area ka muuqda wireless network engineer qofka raba inuu noqdo. roadmap-kan inuu raaco wuxuu ka yani caawinayaa inuu gaaro wireless network engineer. marka sidoo kale wireless network designer inuu noqdo iyo architect inuu noqdo. sidoo kale industrial IoT waxyaabaha maaragtay kaamirooyinka iyo waxyaabaha kale ee maaragtay network ku shaqeeya inuu noqdo. marka collaboration maaragtay architect inuu noqdo, network engineer inuu noqdo, network security engineer inuu noqdo, service provider network engineer inuu noqdo. service provider oo kale waa sida hormuud oo kale wixii lamida cloud network engineer iyo data center engineer. marka wuxuu raacayaa qofka roadmap-ka uu raacayaa qofka raba markaasi inuu maaragtay maxaa la yidhahdaa basically wuxuu ka bilaabayaa Cisco network essential uu ka bilaabayaa. CCNA waa muhiim qof kasta inuu markaas qaato oo uu barto. marka sida roadmap-kan uu u muuqdo wuxuu tilmaamayaa in maaragtay yani maxaa la yidhahdaa qasabtaa qofka inuu raaco oo uu barto si uu u gaaro markaas yani waxyaabaha hadda halkan aan ku xusay. network muxuu yahay? network horta waa isdahaarti waaye of every digital organization. waa wadnaha digital maaragtay organizations waliba waaye. sidaas darteed marka networku waa qayb muhiim ah ee ganacsiga shaqadiisa caawinayo ee aad iyo aad muhiim u ah. marka waxaa ka mid ah operationada maaragtay yani daatada online-ka ayaa ka mid ah in xog lagu xareeyo, emailo la wadaago, in fariimo la wadaago, in wax lagu iibiyo. sidoo kale waxaa ka mid ah network uu leeyahay cyber security uu leeyahay, xogtaasi la keediyey qaabkii loo difaaci lahaa. ilaan xogta shirkado kale ayaa jiro oo maaragtay tartan uu ka dhexeeyo, waxay raadinayaan isku dayaan inay xogta jabsadaan. qaabkii looga hortagi lahaa ayay tilmaamaysaa. carrier basis ayuu leeyahay network sidaan soo sheegnay oo halkaas kuwa ku qorana. marka waa adag tahay waa maaragtay waa muhiim in la fahmo network waxa uu sameyn karo iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loo difaaco xogta network internet-ka dhexdiisa taala. koorsadan waxaad ku baran doontaa fundamental of networking aad ku baran doontaa sida ay u shaqeeyaan maaragtay aaladaha network-ga, sida ay isula falagalaan. sidoo kale addressing network addressing kasta uu shaqeeyo. yani haddii aynu Soomaali ka dhigno waa aqalka aad ku nooshahay. internet-ka maaragtay wuxuu leeyahay waa sida guri dhisan oo kale. gurigaasi dhisan ama magaaladaas dhisan, magaaladaas waxaad ka degan tahay waaxdaasi waxaad ka degan tahay address maaragtay guri ayaad ka degan tahay address waa inuu leeyahay. network services adeegyadaan u isticmaalna network-ga muxuu yahay wuxuu noo qabto. yani sidoo kale maaragtay maxaa la yidhahdaa practice building and home network ayaan qaadan doonaa sidee loo dhisaa internet-ka guriga. sidoo kale waxaan qaadanaynaa configuration oo basic security switch ayaan qaadan doonaa. sidoo kale maaragtay waxaad baran doontaa configuration Cisco devices ayaad baran doontaa iyo sida maaragtay loo testi gareeyo iyo sida loo troubleshoot gareeyo network problems, dhibaatooyinka dhacaya ee internet-ka ee network-ga. marka adjustmentska waxyaabaha aynu koorsadanadu ku baran doono waxaa ka mid ah network basics ayaa ka mid ah. waxaad si fiican u baran doontaa oo si faahfaahsan aan kuu bari doonaa network basics-ka asaasiyaadka network-ga sida back tracer-ka loo isticmaalo kaasoo lagu talagalay in lagu simulate gareeyo network devices-ka oo markaas aanad awoodda u lahayn inaad iibiso. sidoo kale waxaad baran doontaa networking protocols ayaad baran doontaa habmaamuuska ama protocolada ama yani anshaxa maaragtay asaasiyaadka network-ga ayaad baran doontaa.